عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن، صباح وناكسن، هبين وناكسن، ظهر وناكسن، قالوا والبمشي أي مركز وشوكته ومد الصومالية دي إسلام كقبي هامبا. أنت كدي فترة لايف كي يجور ريوي وحي جاه اللعبة هلاقي عذر دارو. لعبت أنا ما بس كفي علم بواسجها الله لكن لايف فيلمات از مجعلاني. وحي أن قوينا قرال بان أنا مركو هرب كسوة تقدمه مركا الحمد لله وحن ربي حال الكلمة كلمة عن بدنين إن هالكن كإيرهاده وأي نمبر 1 كتاي فكري وعن معناه سو تشيدن إيجا فكر كاسو كوس آدن أنا قد بينه هيو أما عن مارته كوة شحن qolooyinka hoggaanka dalka u haya qaybta waliba sharci dejinta iyo cid kasto ay qosayso gacan ku leh iyo ra'yi iyo fikir ku leh waxay tahay ra'yigaygaasina uu yahay in xilligan dib loo dhigo ama bending wax la yiraahdo la geliyo maxay hayto qodobkan macnaha sheegaya mucaaradka sida aan arko mucaaradka Soomaaliya xirfad uma lahan waxa mucaaradka la yiraahdo ma yaqaanaan sidoodaba mucaaradnimadooduna waa mid wax dumisay mid wax dhista ma ahan marka waxaan soo jeedin lahaa oo aan codsanayaa in mucaaradka macnaha dib loo dhigo oo ay horta kow tababarana loo soo qaataan isla markaana horta xilligan inta wadanku amnigiisu soo noqonayo oo maxanaha uu wadanku caga dhiganayo hay'adaha dastuurigana ay macna dhameystirmayaan dastuurka la dhameystirayo maxkamadda sare la dhisayo iyo wixii kale oo dhiman especially ciidamada Soomaaliyeed la dhiso wadanka ajaanibtu ka baxaan wadanka uu caga dhigto in mucaaradka loo furo asxaabta waliba iyagoo haysta in tababar soo qaatay oo qof aan tababar qabin oo dawladaha caalamka hore u maray ka soo qaadan tababar wax wariyaa wax mucaarada muxaafad waa maxay mucaarad waa maxay inay bartaan goorma wax la mucaarada maxaa la mucaarada maxaad adigu mucaaradi kartaa mucaaradkaaga xagee ku wajahnaan karaa marka in macnaha mucaarad xilligan sideedaba dib loo dhigo lana joojiyo mucaarad laakiin loogu bedelo xisaabtan oo ay xisaabtamaan dadku ku xisaabtamaan dawladda la xisaabtami karaan xukuumadda la xisaabtami karaan laakiin wax mucaarad la yiraahdo aanay jirin sababtoo ah waa mashquul waana la confusiyay midka danta macnaha al-shabaabka ka tirsan ma garan karno oo nagu jira ma al-shabaab buu u doodayaa ma qabyaalad buu u doodayaa ma dana shisheeye dadka lacagaha iyo dalaha Soomaaliya kaleba u doodayaa waa ku mashquul waa confused bay naga dhigan very confusing way marka sida darteed in la kala si loo kala ogaado meesha waxaan ku kala wajahan yihiin in horta wadanka inta la xoreynayo horta sheekadan dib loo dhigo ciidamada Soomaaliya la dhisayo dastuurka la dhameystirayo wax macnaha isku aadan oo dawlad fadhido oo dad walba iyo qayb walba shaqeynayso si loo helo marka waxaan codsanaynaa sideedaba mucaarad waxa la yiraahdo in la laalo oo bending la gasho ama hold sida loo yaqaan sida daraadeed waxaan jeclaan lahaa in fikirkayga qof walbana uu ka soo dhiibto cidii ay qusayso hay'adaha sharci dejinta iyo maaragta cid kasto oo ay qusaysana ay arintan aan la wadaagno fikirkayagana ay wax ka soo dhahaan waxna ka qaataan intaasi waa tan fikirkii igu dhashay oo ahaa maxay ahayto ku saabsanaa macnaha mucaaradkan iska socdo oo meel u jihaysan yahay aan la aqoon oo nin walba dan gaaro oo jeebkiisa uu kala soo baxay uu dan guud rabo inuu huwiyo oo go uga dhigo oo ummad kale ku halaajiyo macnaha uu ku maran habaabiyo midda kalena maxay ahayto dadka mar alla markii la yahay maxaara la soo galay durbaanka loo tumayo maxaaro shalay dawladda xasan sheekh waa tii madaxtooyada joogtay oo waliba gabre madaxtooyada waa ku deganaa iska dabaladu xataa banaankeeda madaxtooyada la deganaayeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kala dhex deganaayeen raalli baan ku ahayn waxa ma sheegayn maadaama uu farmaajo iyo qowmadiisa xukuumaddiisa nacabtahay oo ay uu la og yahay muujiyana maalinka wadanka soo galna
madaxtooye maysoonaheeda aan lagu arag idinkaa u yeertay farmaajo amxaaro uma yeeran horta taa ogaada baarlamaanka soomaaliya u yeeray baarlamaanka soomaaliya u yeeray maxaarada ciidankeeda dheeraadkaa hoo soo galay kuwii horena saasay ku joogahayaan maxaa yeelay maalintii 400 iyo ka badan adduunyada dusheeda daqiiqada lagu gubay oo qof damiir leh hadduu oo ilaahay yaqaano oo dhiig yari ku jiro uu garan karo qof bini aadan oo nolosha ku gubanaya ma maqlaysaa oo saqiir leh oo shayb leh oo camool oo cuuriyaan leh oo hooyo leh oo ilmo saqiira leh oo aan loo kala aabayeelin markuu tuutaha xukuumadda gashatay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre ra'iisul wasaarena khayr hele ay tuutaha isku jufeen oo taabid istaagay oo dawladdii intii maxay wanaagsanayd ay soo wada baxday oo ay go'aan ku gaareen yiraahdaan kaalay aanu tuutaha qabno afgooya ka sokayn maayo uu yiri war maxaad ugu fariisateen oo labadii aqalba wadinkii u gooyay ballantii maxaad u gooysateen maxaad u seexateen maxaa la idin arki waayay maxaa tuutaha u gashan weydeen dad badan oo fiican baa idinka buuxa waan ogahay baarlamaanka laakiin inta xun baa idinka badisay ma aqaan sababta inta xun talowma gudoomiyaha la jira waa yaabay inta xun waxa la shaqeynaya maxay yihiin sabab ku awood bateen siyaasadoodu ku shaqeysay waa yaabay anu gudoomiyahan ka shakiyo markaan u tasheego gudoomiyuhu inuu subxaafad ahayd ma aaminsanayo gabigiisa mucaaradka sibuu u lug jiidaya meel fiican uu ka soo dhalaalana waligay ma arko musuq maasuq walbana waa la soo shaqeynaya anu markaan arkayay waxaasoo kalena wadad fresh in lagu bedelay ayadoo wadaniyada iyo garan kara iyo marxaladda wadan ku jiro ee maalin walba daday dhibaatada iyo qaraxuba maartay weelku ugu buuxsamo ama maartay mooshinka ku dhaqaalay oo ku guriya sameeysta ama ku caruur kursada ma doonayna inay maamul noo sii hayaan mana eegan karno marka kulli inta maamul gobolada ila bedelaan jeclaan lahaa inta wixii hore dhama in la raafo sideeda wax cusub lagu bedelo replacement kulligood lagu wada sameeyo dad wanaagsan way ku jiraan oo fara ku tirisa laakiin baarlamaanka waxaan la yaabanahay doortay madaxweyne cabdullaahi farmaajo ilaahay baa doortay rabbi baa doortay laakiin sabab ay u ahaayeen waxaan xuno afarta tuugta ah oo maalinna qabiilka arrintooda u wareejinaya maalinba maaragtay isku ku sameeyay maalinba wajiga ay wax ku cuni karaan wajiga wax ku kicin karaan ku shaqaysanaya sababta macnaha waxaan la yaabanahay loo garan laayahay ama la isaga qaban laayahay marka waxaan idin ka codsanaynaa codsigayaga inaad tixgelisaan mucaaradkana xilligan aad meel naga dhigtaan naga laashaan ereygaas lagu soo gabanayo gabigsa naga howlgaraysaan xilligan kulli waa muxaafad ilaa iyo xisaabtan ma ogyahay xisaabtan waa la ogolyahay laakiin wax mucaarada inaysan jirin dawladdan intay caga dhiganayso waddan kale laga xoreynayo intaasaan soo jeedinayaa waanad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh haddaa idinku dheeraaday